بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلامتين كنا سود وهذا أوغال كلان كيس ضحيتمناد إن شاء الله انتهينا برنامج كنا نعاود وجود جلين وحنا كوب لعبنا آيات القرآن الكريم كا ونو آخر دون ولا لكن فرحان هبنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نماسين ولكن آيات القرآن الكريم كأيون آخرية إن شاء الله إلى كابال مريو ميسان كحسنات كعودر معنا تلقتيه هي لقوية هي إن شاء الله واحد نوجد قريدنا برنامج كني عاوة ونوجع عسومية هي ولكن عبد الله شيخ عبد القادر شيخ جامع وينوسو شيدين دونا بوك أمر دجانة مجلسية هي كلهات كي مقدشوا حصوصات دجال كي سكية سومالي كسجال بقولي كوبي سجال شكي كلنا كنا وحنا نقول دونا سيدا مركب وربع شيء كلنا كيس دحيتمناد madasha akhrinta buugaagta iyo falaqaynta doodaha ee ogaal intaynaan markaa toos u galin barnaamijkeena waxaan ku soo dhaweynaa xubin ka tirsan ogaal oo ah Cabdicasiis Maxamed Axmed suu inoo sheego eray ku saabsan markaa أولاً قبل كل شيء إلهي سبحانه وتعالى بمحله سيدا موقتا هورتا كلن كين هدا وكلن كيس دحيتمناد يعني سكوي منو madashani ogaal oo sanadkii hore 2019 la aasaasay bal hadaynu yariftiimino hadafka markii ugu horeysay loo aasaasay ogaal waxay ahayd inta badan marka aynu meelaha shaaha fadhino dadka dooda dhaxmara marka doodii shaaha ayaa waxaan nidhi bal hada sidee loo cilmiyeyn karaa marka hadafka ugu horeeyay ay ogaal ku timid waxay ahayd in kulamo dooda cilmiyeysan la isku yimaado isla markaana doodaha wixii ka soo baxa la qoro ahdaaftii markii hore aan ku bilownay iyadoo taas ay weheliyaan in bil kasta buug la akhriyo oo xubnaha ogaal iyo cid kasta oo doonaysa inay qayb ka noqoto waxa weeyaan buugga dhiganaha la akhriyo bisha dadka loo qaybiyo la soo akhriyo deetana laga doodo qoraaga laftirkiisa buugga akhriyay soo qoray waqtiga badan geliyay in wixii kritiga lagu sameyn kara lagu sameeyo wixii loo soo daadego oo buug baynu akhrinay buugga nolosheena maxaan ka bedeli karaa iyadoo hadafku ogaal uu mar walba yahay in buugta la akhriyo ay noqdaan wax qofka madasha ka soo qayb galay wax badan ka faa'iideysto qofka akhriyay laftirkiisuna uu maxaan faa'iido badan u ka helo waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa xarunta Hema Books oo iyadu inta badan muddooyinkii u dambeeyay oo dhan si hagar la'aan uu garab taagnayd kulamadan aynu isku imanayno waxa kale iyaguna aan doonayay inaan mahadnaq balaaran siiyo abaalid soo Cabdilaahi nagala joogo oo iyagana runtii aan hadafka ay ka shaqeynayaan iyo kana ka shaqeynayaan isku baal ay ku duulayaan oo iyagana runtii waqtiyada soo socda iyo haddaba aynu maxaan leenahay maxaan wada shaqeyn aad u fog waxaan doonayaa in hal shay inaan yar dul istaago waxaad moodaa markii hore bilaabaynay baash sida ku bilaabantay iyo hadda halkaynu soconnaa in waxoogaa aad yar moodayn in hoos garaafku u yar socdo marka kulli waxaan rajeynayaa inaynu intayna hadda joogtana aynu sii bilaabi doono oo inuu balada faraska intan in ka dheer qof kastaaba laba qof saddex qof soo kaxeeyo akhriska laftirkiisana aynu dee kordhino way hadafka halkan isku imanayna waxa weeye laba hadaf mid wax weeyaan in jadwal ay ku samayso ogaal in bishii marka la dhaabo buuggaas la akhriyo waxay ku siinaysaa in fursad inaad xoog ka saarto buugga akhriskiisa laba markaynu halkan isugu imanana haddaanad soo akhriyin in qofka jeedinayaad ka faa'iido maxaanay buuggii uu soo koobo waqtiga geliyay marka wax weeyaan dalkeennan waxaad moodaa dooduhu inay yihiin waxaan dadku macna qariib ah si guud Soomaaliland oo dhan oo dooda loo haysto in haddii la doodo oo ummaduhu ay haday ummadu doodo isku timaado wax isweydiiso waxa ka soo baxaya dhibaatooyinka jiro oo dhan inaynu taxno kadibna aynu xalalkoogii aan sheegno marka anaga waxaad moodaa dalka si guud bay doodo ay tahay wax dadku ka cabsadaan halkan aynu joognana waxaad moodaa dad tiraado shayga doodha laga galo laga hadlo bam qarxayo kala duwan marka hadafka aynu ka leenahay kulamada noocan waxa weeyaan inaynu kobcino oo aynu ka hadalno waxyaalaha nolosha dadka saameynta kula inagoo mar walba iska ilaalinayna
inaynu cid sharafteeda iyo xuquuqda qofeed aynu ku xadgudubno oo waxaynu ka hadlaynaa ama aynu burinayno ama aan taageerana uu noqdo waxa qofkaas ama ra'yiga ama maxaa waxa halkaa yaala aynu ku koobnaano marka kulley caawa Sheekh Cabdilaahi baa iskale oo runtii wax badan ay la wadaagi doonaa aad iyo aad ba Cabdilaahi iyo inteena kale ka soo qayb gashay baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh u mahadsan yahay Cabdicasiis kelmadda aadka u quruxda badan ee uu nala wadaagay waxa sugnaaba oo aan bilownaa waxa weeyaan qaybtii ugu muhiimsanayd barnaamijkeenan caawa oo ah qaadaadhiga dhiganahan miiska caawa inoo saaran oo aan magaciisa ku soo xusnaa ama ku sheegnay inuu yahay kalahaadkii Muqdisho xusuusaha dagaalkii sokeeyay ee Soomaaliya 1991 buugaasoo markiisii hore lagu qoray luqadda ama afka Ingiriisiga oo qoray in la yiraahdo Yuusuf Maxamed Xayd balse markii dambe uu turjumay ninka loo yaqaan Boodhari Warsame Cabdilaahi baa buugan aad u soo shiilay oo si fiican ugu dhexgali doona isagaan ku wareejinaa si toos ah marka waqtigeena waxaynu u qaybin doonaa laba qaybood qayb soo jeedinta ah iyo qayb aynu la falgali doono buuga oo aynu ka keeni doono weydiimo iyo faalooyin wixii aad ka fahanteen buuga marka si toos waxaan ugu soo dhaweynayaa caawa soo jeediyeena Cabdilaahi Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Jaamac Sayid الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore aad baad iyo salaamaya salaam guud iyo mid gaara qof intiina ka soo qayb gashay tawakkal aad baan ugu mahad celinayaa sida fiican ee uu inoogu daadahiyay barnaamijka anigoo rabo inaan nuxurka degdeg ugu gudbo qodobo dhowr ayaan ku bilaabi lahaa oo aan businesska ugu qaban lahaa barnaamijka marka koobaad aad baan waxaan ugu mahad celinaynaa dadkii loo mahad celiyo dhan dadka meesha inagu marti geliyay iyo teamka abaabulka ogaal iyo mataqaana groupka mataqaana shaqada gacanta ku hayay qof baan ugu mahad celinaynaa marka labaad waxaan u mahad celinaynaa dadka ka soo qayb galay waqtigooda soo bixiyay marka saddexaad waxaan jecelahay inaan hoosta ka xariiqo geedi socodka ogaal oo meel fiican maraya oo maanta uu yahay kulankii 13aad isaga laftirkiisa inaan hambalyeeyno oo aan mataqaana wixii la joogteeyo ayaa qiimo leh marka afraad waxa aan aad ugu faraxsanahay inuu barnaamijkan yahay iskaashigii ugu horeeyay ee Affiliates Foundation iyo ogaal ay yeeshaan sidoo Cabdicasiis sheegay mustaqbalka insha Allah aan mataqaana waxyaabo badan oo kale aan wada fulin doono waxaan rabaa inaan u gudbo buuga sidoo ka dhawaajiyay macallin mataqaana tawakkal waxa ciwaankiisii koowaad ahaa out of Muqdisho waxa qoray Yuusuf Maxamed Xayd waxa lagu turjumay ciwaankaasi kalahaadkii Muqdisho waxa uu mataqaana waxa tarjumay Boodhari Warsame oo turjumaa caan ah waxaana Garanuug ka soo baxay shirkadda Garanuug Limited 2018 oo ah imika laga joogo sanad iyo xogaa xilliga soo baxay qiyaastii buug aad u caan baxay oo shanqad fiican sameeyay waxaan jecelahay markaa inaan ka akhriyo buugga dabcan noocyada akhrisku way kala duwan yihiin mar buugga dan gooniyeed ka leedahay baad ka baaraysaa marna daraasad baad ku samaynaysaa marna akhris guud ayaad ku samaynaysaa anu waxaan jecelahay inaan laba concept oo mataqaana cilmiga taariikhda aan buugga ku akhriyo indhahooga conceptka koowaad waxa weeyaan taariikhda ka taariikhan cilmiga taariikhda ama historyga iyo xasuusta shared memoryga ama public memoryga ama common memoryga xasuusta guud ama xasuus wadareedka labadaas ayaan indhahooga ku akhriyo doonaa buuggan intaanan u gelin qodobada aan ku akhriyo doono iyo labada concept maxay kala yihiin iyo maxay ku kala duwan yihiin waxaan jecelahay inaan mar labaad xigto dhowr jeer hore aan xigtay oo dhahan ka booshaday inaan saaxiib nahay oo Mukhtaar Xasan Meedhana leeyahay oo ah marka buug review lagu sameeyo ama dib loo akhriyo ama la bandhigayo muhiimadu maaha ama ahmiyadu maaha ama shaqada la qabanayo maaha in qofka dhageystaha ama ka soo qaybgalaha laga dul qaado mas'uuliyadda in soo buug akhriyo oo la raabo buuggii soo kooban yahay isagoo nuxurkiisii oo kan wax kale meesha kugu haray ma jirto waa in buugga albaabka qofka loo furo doodiisa laga qayb qaato yani doodda qoraagu soo bandhigayo
laga qayb qaato si qofka laftirkiisu marka dambe haduuna hore u akhriyo marka dambe uu akhriyo isagoo ku baraarugsan qodobo macayana ama mataqaana arrimo gooni ah oo hore looga dooday ku baraarugsan buug oo akhriyo marka iska dul qaadi mayna mas'uuliyadda akhriska buugga intii hore soo akhrisay iyo inta mataqaana akhrin doontaba laakiin waxaan isku dayaynaa in qaybo kamida buugga aan iftiimino inta markaan kaga baxo arrinka waxaan rabaa inaan si gooniya hoosta uga xariiqa arrimo farsamo oo buuggu qeyrkii dheer yahay ta koobaad waxa weeye farsamada daabacaadda inaad wada aragteen baa laga yaabaa in dhow suuqa buugta Soomaalida waxa aad looga cabanaya buugga iyo kartidiisa maxaan ku raad qiimihiisa buug markaa kala go'ay iyo buug mataqaana xaashacado culus ku daabacan iyo buugta qaarkood waxa xaashida sawirka lagu daabacay markaa waxaan jecelahay in hoosta ka xariiqo Maxamed Yuusuf iyo Garanuug tiimka buugga soo saaray in buugaadu qurux badan oo farsamahaan si fiican u daabacan ay noo soo saareen oo runtii buug kasta oo lagu raaxaystaa waa la yiraahdaa laakiin lagu raaxaysan karo akhriskiisa hadda xaashada tahay type testing hadday tahay sawirada soo loola tacaamula hadday tahay farta iyo midabka hadday tahay iyo xajmiga laftirkiisa buug la qaadan karo oo maqaaxiya la tigi karo inuu yahay waxa kale oo rabaa inaan xariiqo hoosta ka xariiqo tarjumaha laftirkiisa inaan mahad celino Budari Warsame oo nin aad u dadaal badan ah buug badan oo horena tarjumay imkana qaar badan gacanta ku haya Budari Warsame waxaan jeclaan hoosta ka xariiqo buuggiisii hore uu tarjumay Richard Burton waxa aad looga cawday inuu ahaa buug luqad adag Soomaali adag ku qoran af adag ku qoran oo culus laakiin waxa jirtay dood awar ma tarjumaha dooqa qaatay inuu luqadda adkeeyo afka buugga adkeeyo mise buuggii hore la soo tarjumay laftirkiisa ayaa lahaa dabeecadda adayga oo Ingiriis adag ku qornaa marka buuggan wuxuu nooga jawaabayaa su'aashaas oo Budari marka hore inaguma adkeenin buugga adkaa maanta tarjumada aad u fudud oo salis ah marka afcaaliga lagu cabir aad kaaga degayso oo fudud Soomaali ayuu ku tarjumay wuxuuna raacayaa ma filayaa qoraalkii hore Ingiriiska iyo buugga laftirkiisa qoraalkiisu ma ahayn buug luqad adag ma ahayn inta markaan ka imaado waxa isaguna in farsamahaan hoosta laga xariiqo mudan farshaxanimada qoraaga waxa caadayska qoraa kasta in lagu amaano inuu farshaxan yahay laakiin qofkii buugga akhriyo waa garan karaa farshaxanka Maxamed Yuusuf iyo sida waxaan jeedaa Yuusuf Maxamed iyo sida uu qoray aanu gala hadaba nuxurka mataqaana bandhigeena ama dooda buugga ku saabsan qodobka koowaad ku bilaabay waxa weeyaan inaan hoosta ka xariiqna ama isla garanno qofka aan wax akhriyayna waayo qofka buugga qoray in isaga laftirkiisa karakterkiisa aan garanno taas ay naga caawin karta inaan waxyaabo badan oo buugga ama ka gaabiyay ama ku dheeraaday ama ku talax tagay aan fahmi karno inaan qofka horta fahanno inaan ka shakhs inaan fahanno ama waxa laga filan karo qofka haday marxaladiisa tacliimeed haday tahay xilalkiisa haday tahay mas'uuliyad khibradiisa haday tahay isku mid ma aha qofka iyo waxa laga filan karo marka Yuusuf Maxamed marka hore ka shakhsi qof mutacallima oo wax bartay sidoo kalena macallin soo aha oo tababar macallinimo qaba xilal mataqaana sargaal dawladeed ah xilal soo qabtay civil servant-ka shaqaalaha rayidka meel fiican ka gaaray oo ilaa agaasimaha telefishinka qaranka sidoo kalena ahaa marka agaasimaha telefishinka qaranka tahay dawladda ka tirsan tahay waqti marka taliskood ka garabdooda haddana inner circle-ka koorka go'aanka ama dadka go'aan goynta madaxtooyada ama hoggaanka dalka aan qayb ka ahayn qofka noocaas ayaa inoo waramaya sidoo kale qof aan oran karno wuxuu kamid ahaa shakhsiyan ama qoyskiisu tabaqada dhexe sare يعني dabaqada dhexe qaybteeda sare dad nolol fiican ku nool markaan dib u qiyaasayno mataqaana waxa uu ka waramayo oo dadkii la oran karo ay Muqdisho u shidnayd waaga yani familiyada Muqdisho u shidnayd ama levelka nololeed fiican ku noolaa ayaa inoo waramaya marka inaga taa maskaxda ku hayna qofka inoo waramayo shakhsiyadiisa maskaxda ku hayna ayaa waxa rabaa inaan isla eegno laba shay marka wax la daraasaynayo gaar ahaan arrimaha taariikhda laba shay baa ayaa la kala saaraa marka qaar saddex kala masalada xasuusta la yiraahdo xasuusta ku saabsan dhacdo muayana waxba dhacay dadku si wariyaan marka hadaad qof weyn oo daa ilmo yar qof joogi qof aan joogin bulshada koox kasta oo bulshada kamid dhacdada si warisaa dhacdada si warisaa marka xasuus wadareed baa la oran karaa waxa dadkaasi wadaagaan sababtoo ah xasuus qof quraata maaha qof quraata wuxuu xasuusanayo marka mesela hadaan tusaale soo qaadano kooxaha ciyaar xaafadka ay kubadda koob macaan oo la kala qaaday hadaan tusaale soo qaadano dadkii ciyaarayay
ciyaartooyaduna qof walba xasuus gooni u leeyahay ciyaarta iyo sidoo ciyaaray daalkii gaadhay iyo waxyaabo isagu sameeyay iyo wuxuu ka xanaaqay wax xasuus gooni u leeyahay xasuus wadareed waxa jirta kooxdu ay leedahay hadii laga badiyay haday badisayba ay mataqaana wadaagto koobkaasi loo qaaday iyo dadaalkii la geliyay wax noocaas marka taa xasuusta iyo mas'alada taariikhda oo iyadu mesela sida uu taariifinayo nin taariikhiyahan oo la yiraahdo Wajika Uthrani oo ah mutakhasis taariikhda inuu cilmi dad xirfadlayaal sameeyaan oo manhaj macayna raaca si gooniyana loo maxkamadeyn karo yani si gooniyana loo qiimeyn karo u yahay marka isla garoonka isla kuubka hadan yani kubadda hadan taalo soo qaadana hadii qof taariikhiyan wax ka qoro oo buug taariikhi u taariikhiyo kuubka waxa uu soo saaray waxaan oran karnaa waa cilmi taariikhiya oo qof xirfadli uu ka shaqeeyay marka bilowgaba waxa muuqanaysa inuu ayara kala duwan yihiin saxnimada ama run dhawaashanimada xasuusta guud iyo taariikhda akademiga rasmiga oo maxaan ku raahdaa lagu eedayn karo ama lagu dhaliili karo taariikh xasuusta guud in mesela caadifadu saameyn ku leedahay qofku wuxuu jecleysanayo ama wuxuu maalinta jecleysanayay oo ku saameynayo maxaan ku raahdaa ay sheeg يعني taariikhda warinayo ay saameynayso caadifadiisu saameynayso ama cidda uu la jiray marka ay kala duwanaanayso dadkii koobka qaaday waxay xasuustaan iyo dadkii laga badiyay laga qaado waxa ay xasuustaan kala duwanaanayso iyadoo isla dhacdadii ay tahay yani kubad baa la ciyaaray laba kooxood baa ciyaaray la kala badiyay kubad la kala qaaday laakiin waxa macquul ah in dadka laga badiyay ay awoodda saaraan tusaalahaan khaladaadkii uu galay maxaan ku raahdaa siroduhu galay ama khaladaad ciyaartoy macayni galay ama taarbuunka wixii ka dhacay oo iyaga culays ku ahaa inay awoodda saaraan halka dadka kale ay xasuustaan ciyaartoy goolka dhashay xilligu dhashay si loo dhaliyay iyo yani iyadoo isla hal dhacda qoloba ay wax xasuusanayso deetana qadiyadaas ay noqonaysaa ama tafsiisha yani xabada kamida dhacdooyinku ay noqonayso wax saameynaya ama dib u saameynaya taariikhda gebigeedaba koow labo in lagu waxa kale lagu dhaliilaa marka laga yimaado caadifada in ay waayuhu xukumaan marka mesela waaga wixii dhacay waxa imika taagan baa xukum marka hadii qoladii maanta la saayay waaga la saayay waxa la soo xasuusanaya wixii hore ee khaladaad ka dhacay ama ay sameeyeen dib in loo marka waayuhu waxa ay dib u faqayaan ayaa xasuusta guud iyaga sidoo kale saameeya waxa kale oo xasuusta guud lagu dhaliilaa inay tahay wax isbedelku ku dhaco qalbo marka si loo wariyo qalbo narrative uu awood yeesho laakiin su'aal muhiim ah rabaa in halkan keeno hadii intaasiba ay ku eedeysantahay xasuusta guud oo ah waxyaabaha buuggan oo la falgalaya mid kamida taariikhda caadiga ee akademiga ee jaamacadaha lagu sameeyana maana eedaa yeelan karin maana qorahu ama taariikhyahanku la dhacsanaa karin ama u caadifadoon karin ama u janjeersami karin cid macayana labo maana waayuhu yeedhin karin wax la qorayo marka maanta markii Soomaaliland rabto inay Soomaaliya ka goodo waxay faqaysaa taariikhda gumeysiga annaga Ingiriis baan gumeysan jiray halkan aan waagi odayga Ingiriis xaqan u joogsaday islaantii boqorada xaqan ay fadhiisatay qiimeey leedahay maanta marka nin kasto awgii waaga mushaar qaadan jiray oo soo faqaya moogta laakiin marka mesela mashruuca qowmiga Soomaaligu shaqeynayo wax kasto gumeystiyi waa laga guuraya waxa la hore loo soo faqaya mesela sayidkii xaqan joogsaday iyo xaqan fadhiistay dagaalkii waagi Ingiriiska lagu qaaday waa lagu jabiyay iyo marka mar walba taariikhyaanka Soomaaliga ama taariikhyaanka si guud yani dhacdada maana waayuhu u yeedhineen marka haddaan dadajiyo gabagabada waxa noqonaysa halkee ku kala beeri karaan xasuusta guud iyo taariikhdu mar haddii labaduba isla ciladihii yeelan karaan hadii labaduba isla ciladayga yeelan karaan maxaan rabaa inaan buugga ugu bilaabo qodobadaasi waxaan rabaa mushkilad baa ayna haysata marka inagu akhriyayna Soomaali ahaan wax la xiriira taariikhdeena koow mushkiladaas waxay ka bilaabantaa مثلا haddaan tusaale soo qaato dhacdooyinkii in soo maray marka cid wax ka qorto markaaba qofka haybtiisa la isweydiiyo ceeb maaha qofka in haybtiisa la isweydiiyo laakiin maxaa imanaya markiiba judgment baa la sameeyo xukun inuu qofkaasi mar hadduu hebel yahay cidaana yahay waxaana ka hadlayo waxaas sheegi doona hadduu waxa sheegi doono hebelna yahay cidaana yahay waxaana ka hadlayo wuxuu sheegaya waa baadil kulli ma taqaana waxaan inuu ku celcelina reer walba yarba meel ugu guntan nin walba toodu ka sheekeeya laakiin haddaan sida kale u dhigno maana cid walba adduunka cid walba oo taariikhiyahana cid walba oo taariikhda wax ka qorta maana cid ka soo jeedin ay meel wax ugu guntan tahay toodana u ka warramay marka taas waxay nagu qasabtaa inaan maadada laftarkeeda waxa la qofku qoray marka sida loo characterize gareeyo meel la dhigo waliba go'aanka laga qaadan in la isla garto
مثلا بابا يوسف تعالى بو قري يعني يمكن بوغان دول فدنا ما بو كلا كلا بابا يوسف تعالى بو قري اسنا بو كورميا waa nin isna ka soo tirsanaa ilaa imikana walaaleeyo markiiba maxay imanay waa ninkan intiisii uu ku celcelinayay inaga daayay so waxa uu qoray markaa buuga ku jira ya wax la falgalayo ma noqonayso taasi waxay keenaysaa in wax walba horta halkeeda lagu xidho sidoo qof walba kasto Soomaaliya taariikhda wax ka qoraa oo ready u yahay qof ala yani khaldan ama dambiilaan sida qura markaa waxa noqonaysa qofku ku qancin karo public dadka guud ku qancin karo ka baxsan kooxdiisa dadka ka tirsan isagu inuu kooxdiisa karbaasho markaa oo si dadka kale ugu sacabiyaan loo dhageysto oo ninkaas wallahi nin fariido runta sheega waa inuu cidiisa eriyado taasina way adagtay qofka bilaadanka kama dhex guuri karo duruuftiisa marka haddaan inta hordhaca kaga tago iyo labada concept aan rabeenan ku ugu gogol xaadno buugga ugu gogol xaadno qodobka waxaan u gudbayaa afraad oo ah buugga laftarkiisa qodobada aan rabeenan ka sheego buuggani buugaadu kooban 206 qiyaastii 206 page ah inta mataqaana qoraalku ku qoran yahay waxa uu ka warramayaa maalinkii ay xabadii ugu horeysay ee jabhadu Muqdisho ka dhacday ilaa intuu ninka buugga qorayay uu ka qaxayay magaalada isagu uu ka baxay oo muddo waqti yar oo kooban dhacdooyinka dhacay laakiin dhacdooyinka uu warinayo aan waxaan rabaa inaan qodobo معاينة كسوق قبته أو عن إسلا أرجنا كو بوجانو نك هذا يجي نوجا ورمايو ما تقانا دعوة دور كات الضباط مهم كداعي ما تقانا استيد كلابس كداعي وحكوشرا تاريخ بدن ودي بالنقاشة marka uu ka warramo dhacdo macayana waa inuu dib ugu noqdo taariikhda marka noloshiisa dib uga soo warramo tacliintiisa dib uga soo warramo waxbarashadiisa dib uga soo warramo shaqadiisa dib uga soo warramo oo dib uga soo warramo maraaxilkii siyaasiga dalku marxaladii siyaasadeed dalku soo maray oo dib uga soo warramo marka hadaan inta aan uga gudbo qodobka koowaad aan soo qaban karnaa waxa weeye inuu Yuusuf Xayd wuxuu noo warinayaa taariikh bulsheed taariikhda markaan akhriyno wax laga yaabo loo akhriyo nin noloshiisa ka sheekeynaya noloshiisa ka sheekeynaya laakiin noloshiisa waxa ku dhex jirta oo inooga warramaya taariikh social history inooga warramaya nolosha dadku siday ahayd markan uu warramayo wuxuu kaga duway dad badan oo kale oo awoodda saara dhacdooyinka iyo hebel baa yidhi iyo hebel baa baxay iyo maalintaas halka la galay yani dhacdooyinka individualka awoodda saara Yuusuf ninkan wuxuu kaga duwan yahay taariikhda bulshada xaaladda maalinka jirtay dadku si wuxuu arkayeen marka laga yimaado dadka gudaha ku jira go'aanada iyo hawsha wada tafaasiishaaya public sidoo arinka uu arkay marka ugu horeysa bad buuga furtaba hordhaca way kaaga soo horbaxaysa masaladaasi moogta wuxuu ku bilaabay hadaan yani in yar ka soo xigano subaxii bisha December 30 ahayd sanadkii 1990kii dadweynihii Muqdisho deganaa waxa ay ku waabariisteen maalin degan oo cimiladu kuleyl tahay iyo kuleyl iyo hanfi yar lahayd caruurtii iskuuladii bay tageen shaqaaluhu dugsiga waxa u baxeen shaqadoodii noloshii wixii dhan markaa ma rabo inuu wada akhriyo laakiin markaa waxa ishaada soo qabanaysa inuu Yuusuf rabo inuu u taariikheeyo xaaladii bulshadu ku jirtay marxaladda mucayanka qodobka labaad aan soo qaban karno waxa kamid ah tusaalayaasha buugga 40 iyo 84 oo kale wuxuu kaga warramayaa midalan kacaanku sidoo wuxuu rabayn jiray midalan wuxuu ka warramayaa hadaan soo qabto 84 waxaan ka dhex akhri karnaa ama ka dhex daraasin karnaa tarbiyadii uu kacaanku ku sameeyay dadka oo xukumayay okay yar igar haleehada waan 48 waa halkan wuxuu ka warramayaa midalan markuu dib ugu noqonay taariikhdiisa kacaanku dawladda ka dhalatay bay ahayd nolol ba ka horeysay qaab mujtamacu yaalay dad ba madaxa dad ba mujaaha dhaqaalo si uu yaalay arrimaha bulshada si uu yaalay ciidanka markuu dhulka qabsaday si uu u dhigay isaguna marka sida uu dhigay dushun yani go'aano ma maanta go'aankaas la qaatay waxa la sameeyay laakiin way fulin la galiyay moogta dadkii ka soo horeeyay hore wax u bartay ee hore yani u garaadaystay dib loo tashkiiliyo dib loo soo saaray yani dadkii reproduction lagu sameeyo si loo sameeyo waxa kamid ah marka barnaamijka shaqo qaran oo kale dadkii marka xataa shaqaalaha lagu sameeyo dina wuxuu ka warramayaa iyagoo macallimiina in la qaadayo Muqdisho la geenayo shaqo qaran loo dirayo tababar dib loo gelinayo mabaadiida kacaanka iyo mataqaanaantooda dib loo barayo noloshooda dhan dib loo xataa marka qaar ay gaarsiin qofka karaamadiisa si aanu su'aal iyo jawaab soo celin karin
yani dood u gelin karin waxa loo sheegay ama waxa la barayo in horta markii ugu horeysa karaamada laga qaadayo qofka saf la gelinayo dariis loo wada xirayo meel yar sidii qaxootiga ay ka qaadanayaan cuntada ka qaadanayaan maalmaha qaar ka xataa dharka laga wada dhigo meel wada la gelinayo caafimaad balad ka qaadaya wax noocaas lagu sameeyo marka waxaad ka akhrisan kartaa buuga markaad akhriyayso sidii ay dawladdaasi dadka u abuuri jirtay yani dadka dib ugu habeyn jirtay marka xiro xataa kaftan waxa ku jira marka dadka teamkoodu marka waqti badan ku jira meesha ay caawdaan askar yar ba maamusha ay hees yar isku jiibinayaan bay qaadayaan waqti taasa marka meel walba ka dhacaysa ilaa madaxtooyada gaadhaysa dina odayga uu imanayo oo inuu dajiyo isku deedeetana wareysanayo heestii uga warramayaan markuu sheekada Yuusuf ka warramayo boga 48 waxay qaadeen midalan markuu sheekada soo wada wuxuu oranayaa inuu nin baas ka dhigay inuu xaaskiisii la hadlayo markaas uu ma ogtahay aaminaay Indiana Ocean kan ag wareegaystay meesha lagu tababaray xero waxayd badda dusheeda ma ogtahay anfacada cuntaan anfacadan cunamo laha iidaane waxay raqalsan baa lagu qabtaa ma ogtahay askari jaahilan amar ka qaatay niman macallimiina jaamacadaha iskuul dhigay ayaan nin mataqaana laba darajo loo keenay ma ogtahay ka wax noocaas ay ku gabeeyeen oo حتى عقابه كينتي مرة بينا وقت بدنا شكل كوبحيو لكن واحد ربعنا تعالوا سوق عطوا قضب كأ إنه تاريخين أيوه تعليم تضد كسيد اللوجو سميني دبوا هابين اللوجو سميني مركان وحد كذا حقيقة كرتابوجا طبق لها مجتمع السيدة أي كلا هاين وحد تعالوا مركو كور رمي حلك لقى قاعدة يسجل وزير كحلك كقاعدة وزير كورفافين تاها نلوش يسمى مركو صورة جريجيس حافظ ودكنا جريجيس دويا اللي هنتذا وكتسرفي إنه طبقة مجتمع السيدة ويا اللي يمركو كور رمي قويس كيس سوالو كنا على يهودي عروتيس وحاسي أي دجناين وحكلو يوسف تاريخنا لقد حقري كرا بوجا سياد برا شخصية ديس كاركتر كأوضيجا مركا لقي ما ده سياسة ديس قف أهانتي سمحوها مركا واحد شرتوا وحكوا رمي حالة وكوا رمي مرة جدي كوتشرين بوك تاريخ أوضيجا قري مركا جدي ده أوضيج سؤال رقمي يصير لوجو رمي حالة يعني صار علاقات كوجد حدا عين إسوريسيا سؤالها سي ويدينيان يا هيبيسي ماشي يالا يوضيق سودو نولا iyo waxa soo dhan inuu مثلا ilaa xataa kaftanka Soomaalida habeenka Jimcaha caawa Jimcaha odayga islaanta ku kaftama ilaa waaga u jiray oo mataqaana iyagoo la fadhiyo odayga maalin Jimcaha oo wareysanayo weydiinaya maxaan ku dhaahdaa su'aalo noloshiisa la xiriira islaantii soo marisay kale la yar kaftamaysa kale maxamed caawano waa Jimcaha ay leedahay marka mar rabayna ku sii fogaado qodobka kale wuxuu Yuusuf Maxamed si qurux badan u sawiraya magaalo wuxuu ku bilaabay shaqaynaysa moogtay hordhaca sanadka akhrina shaqaynaysa oo dadkii iskuulkii shaqadii iyo maxay iyo wax dhididay wax xalaaluushay iyo yani la socota Soomaali kasta nolosha socota wuxuu markaa inoo sawiraya nolosha ku bilaabay sida u baabaaday xabad sida uu kala daadatay marka wuxuu ka warramaya midna to the level marka dambe aan qofku suuqa tagi karin xafadooda ka bixi karin laana wada kala baqaya ciyaal xaafadka marka dambe ay bilaabaan inay suuqeeyaan oo wixii booliska saldhiga booliska soo dhici karaan hub iyo waxa dina dadka ku baadhaan maxaan ku raahdaa marka meel laga qaxaba tuugta soo gasho oo aroorta dambe maalin wuxuu sawiraya aroor booqanaya xaafad dawlamaasiintu deganaayeen oo soo marayo nolosha soo baabaaday iyo si guriga loo faqday iyo alaabta barnaamijka daadsan iyo yani albaabada haawanaya isku dhacay awal horena marka la hormarayo laga biqi jiray waqti halkan hebel baa degano yani shanqadha hoos u dhigaysay hadalka si aad u dhaafto moogta ciidankiisa ilaaladiisa marka midna tusaale waxa kamid ah boga 29 oo kale waxa kaga warramaya مثلا كان لبيه سجاشن إصلاح حالة دائما كصورنا بو أيو أن كورنا بو صورة يا ست تفاصيل أنا أخريا مركور الربي لكن وقت كي يريني وقت قلب هذا كلام مثلا تكره أخري كرتوح حكم ذا كلا صور حبي كرتوح حسوس قركيسة مثلا أدو لا يابله كنترول كورك سيد دولدو وكنترول كلاس يعني ستيد كسدو كنترول كري انفورميشن مجتمع هليه وكور رمى جهادها soo gaaray jawhar yani magaalada xiriir jira inaanu magaalada caadiga waxba ka warhayn marka noloshu iska socoto oo maxaan ku dhaahdaa aan waxa magaalada hareeraha ka dhacaya inuu ciidanka halkan soo gaaray marka inkastoo ka jawaabin technical si u suurta gashay mujtamac saas kugu xidhan oo ganacsiga socdo oo beeraha wax laga soo geynayo in warka loo kantaroolo oo magaaladu ka warhayn halista ku soo socota haddana waa arrin aad u la yaab leh sida ay ugu guuleysatay dawladda meesha maamulaysa in dadka kala xidho dina dadku aanay warka dalka qaybiisa kale ka dhacaya aanay helin
waanu soo noqon doonaa qodobkaas sababta waxyaabaha uu ku fashilmay faahfaahintooda waxa kale oo mesela Yusuf siyaro qurux badan noogu waramaya isbedeladii ugu dambeeyay ee markii dawladdu sii dhacayso ka gaarsiiska bilowtanna wax ku hagaaga marka hebel casilo hebel magacaabo oo kan oo xukuumadda bedel oo nimankan xirxiro kuwa soo daayo yani sidii meel dhinacna aad arkaysa in lagu kala tagay oo yani inagu waan taariikh dhacday weeyna dib aan u akhriyna marka waan garan karnaa in lagu kala tagay moogta laakiin nin jooga laxdadii lagu kala tagi lahaa ku soo socoto oo rabo inuu ka gaarsiiyo moogta bilowtan ciidan dejisaa bilowtan waxaan ay sameeysaa waqtiga yariinaya filaya okay انتنا اوكي واي waxa uu si fiican inoogu soo waraya dad akhrida waliba aad u fiirsato siyaasadda inoo public yani wax dadweynaha hor yaala oo TV qaranka laga akhriyo waxna waa channelada dambe moogtidaha dabadiis wax ka socda marka Yusuf Xayd isagoon ahayn shakhsiyad gudaha systemka ku jirta oo dadka go'aanka gooya kamida haddana wuxuu si aad u dhow u sawiraya aan aad uga warhay in badan ka soo shaqeynay magaalada ku noolaa xiriir badan leh wuxuu aad inoogu soo wari karayaa oo meelaha qaar kood si fiican uga akhriyaysa daaha dabadiisa maxaa ka socday dawladdu ay wadeen ama dad shakhsiyad dawladda kamid ay wadeen ama mataqaana markii dambe la isku soo galay magaalada la isla soo galay jawaaduhu soo galeen hogaanka jabhadaha magaalada soo galay USC iyo ragga hogaaminay iyo taliska hogaankiisa iyo markii dambe reeruhu isku abaabulay yani transitionka ka dhacay from jabhad iyo dawladda sileynaya laba reer oo is eryanaya oo mid walba midka kale oo ka baxaysan yahay transitionkaas u dhacay yani isbedelkaasi sidoo u dhacay si yaro fudud ma ahayno mesela hadii aan idhaahno jabhadaha markii hore ahaa reer ku salaysnaa dawladuna reer dabada saartay marka hore waa la kala safnaa marka waqtiga iyo hawshadan ka faa'iideyno qodobadan aan tirinayna waxa weeye waxyaabaha marka taariikhan loo darsiyo buugan aan lagala soo dhex bixi karo iyadoo aan ka qofku yani ka guurayo ama ka talaabsanayo misalada markii hore aan tilmaamnay caqabada inagu ah in qofka marka hore go'aan inta laga qaato meel lagu xidho leeyahay ninkaasi warkii reerka ugu wada marka waxyaabaha wadno waxa kamid ah waxyaabaha uu taariikheynaya buugani laga dhex baran karo ama laga dhex akhri karo marka waxa control ka soo dhaafnaa filaya isbedeladu soo dhacaan baan marinay مثلا waxyaabaha uu taariikheynaya ama sawiraya waliba si qurux badan sawiraya oo tafaasiilaysan oo waliba qayb shakhsiga ku jirto laana isaga laftirkiisu ma qof xaaladda ka dhex baxsan qof xaaladda ku dhex jiro wulul hayo oo dadka isdileeya reeraha qayb kamid ah oo qayb lagu tirinayo oo qayb ka cabanaya oo yani isaga laftirkiisu hulal qabo moogti qof banaanka ka yimid xaaladda observer-ka oo dusha ka akhriyay maaha marka mesela bulsho qaab u taale oo wada noolay magaalada kulminaysa isku xoogsato iyo nin walba noloshiisa wati sida ay transformation ugu dhaco ay isku furfurto ee loo kala fadhiisto yani bulshada isku dhex socotay magaalada isku dhex socotay loo kala fadhiisto kadib aagag ay noqoto marka aag reehebel ayu yani aad uga waramaya looguna kala duwanaanayo maxaan ku raahdaa falcelinta laga sameeyo wax u dhacayaan marka say wax u dhacayaan dad ba ku faraxsan soo dhaweynaya waxaasi dadna cabsi iyo walwal baa hayo baqayaan taleefan hadhow ay qixi doonaan marka isaguna dadkaas ku mid yahay wuxuu markaa ku guuleystay inuu labada dhinacba si fiican u sawiro labada dhinacba xaaladooda dad marka hore dawladda heefay oo yani bilowgaad ku akhri doontaa cadaadisku meel xun ka gaari taleefan wixii doonaaba ka dambeeyay hana dhaafto iyo dad markii dambe dawladda lagu tiriyay kuna tirsanaa qaar badan oo kamid oo walwal qaba maaha imiko soo dhaaftay dawladda hal ilaaliyo iyo talada odayga xilkaasi joogo soo dhaaftay walwal qaba noloshooda si uu noolaan doonaan after mataqaana markuu isteedka burburo marka mesela tusaalayaasha waxa kamid ah beejka 105 wuxuu ka waramayaa maruu bakaaraha booqday dadku si u soo dhaweynayeen ciidamada jabhadaha okay qaarkood ka boodboodaya qodobadan aan maxaan ku raahdaa soo qorqoray waxa kamid ah mesela wuxuu aad ugu dhuundalwalay oo ka muuqata buugiisa inuu bulshada diblomaasiga joogta Muqdisho dawladaha kale matalaysa sida u arkeen xaaladda dalka iyo burburka socda ama isbedelka socda iyo walwalka hayay yani sida u fasiri kar laayeen xaaladda dalka ay u fasiri kar laayeen buu ka waramaya mar buuga 94 wuxuu ka waramay mar la kulmay nin maxaan ku raahdaa sargaal safaaradda masaarida ka tirsanaa iyo waraysiga wada sheekaysiga dhexmaray waxa kamid ah mesela imika markaan 30 sano kadib akhriyayno dhacdooyinka xilliga dhacay waxaan ku akhriyayna xaaladda imika soo tahay loo kala fadhiyo iyo soo loo kala dhamaaday mesela iyo
waxa uu tusaale u yahay in xilligaasi xaaladdan kasaan u akhrina aanay ahayn masalan imika markaan dib u booqanayno marxaladda inaga xaaladdeena kale waxa loo akhriyaa masalan inoo go'aan cad oo mataqaanaa SNM ay go'aansatay in Soomaaliya ka go'do loo marka horeba meel yaalle 90kii markii dawladdu dhacday implementation lagu sameeyay imika wuxuu ka warramaya masalan ciidamadii jabhadda Muqdisho soo galay in qayb ka mid ah saraakiisha ay SNM ahaayeen ragga hubka ridayay يعني إنه حالته ساس كودح جرتي وتقال وقوي يكونفر كان دمانة أما قلبه إني ماشي ده حرسان سواء دمسان ساني تشرينه أي هكذا المقنعات شبابه هكذا الدولان لكن إيش كودح تشرين وإنما سراكيله سنة ما وريدية هو بكواوين التلرية USC أي بقالك سوكش أيوه تاريخين مثلا بقلبيه تضاعتنا لاستعة تضاعتنا وكجور رمية وقدام بنتي وحصورة يا إنه مقالة القيامة ير وكذا عيب وقت waxaad aad uga akhrisan kartaa mesela buugga koobiyo 120aad waqtigan ugu yaraan akhriyaan jeclaa isagoo habeenkii seexan la oo noloshiisii war sidii qof la geeriisa loo sheego kale xusuusaad dagaalkii sokeeye Soomaaliya ee 1991 sida waqtiga inoogu dhowray 30 daqiiqo qoondoonay u dil istaagay insha Allah imka markaa waxaynu u gudbaynaa qaybta labaad ee barnaamijkeenan qaybta labaad oo noqon doonta weydiintii warcelintii iyo falanqayntii wixii aad kala aragteen markaa kitaabkan kala kulanteen marka laba inuu kala qaadaynaa qolo waa qolo buuga soo akhriday oo xoogaa la falgashay buuga iyo qolo dhageysatay iyo fahankoodii wixii uga baxay ama wixii khibrad hore ay ka hayeen marka insha Allah inagoo waqtigeena ilaashanayna goor dambeena bilownay qof walba waxaan siin doonaa insha Allah waqti yar oo kooban oo markaa hadii uu weydiinayo iyo hadii uu falanqayn ay tahay marka insha Allah marka waxaan jeclaan lahaa inaynu ku horeyno groupka buuga soo yar akhriyay wixii faalla iyo weydiinay ka hayaan kadibna aynu gudubno markaa madasha inteeda kale insha Allah يوسف حد قديس ku jiray gudi loo xad saaray inay yani wax ka qoraan taariikhda madaxweynaha oo ku jiray marka uu ka waramayo wuxuu ka waramaya in ninkaas uu ma ahayn nin hanti jecel uu san ahayn nin yani qudiisu deeyaan qayb ka ahayn boobkii waddanka ka dhacay duruufaha ku shaqeyn jiray geed hoostii buu miisay dhigan jiray xataa wuxuu ka sheekeynaya maruu galay gurigiisa in daah ay xoob caara ku samaysantay uu sheeyay ka laakiin uu san rabin in marka laga tago labadii gobol ee waqooyi koonfur in lagu soo daro saddexdii kala maqnaa talada Soomaaliya oo dhan wuxuu rabay in san cidina kaga daba dhufo marka shakhsiyadda diktiirka ahayd iyo go'aanadii uu qaatay aad garanaysaan ay kamid ahaayeen yani duqeyntii magaalada Hargeysa yani dad baraaga loo sameeyay gaalkacyo waxa kamid ahaa dagaalkii 77 oo Soomaalida urtina yani ay ku gashay waxyaabaha soo dhan marka aad eegto waxaad garanaysaa yani inuu ahaa qof yani digitalnimada ay meel sare ka gaadhay waxyaabo baa jiray gacanka uu qabtay oo sax ahaa oo isagu uu sheegayo mashruucyadii waaweynaa waxaad celintii balcad yani 75 warshado yar yar oo tii dawladka berberi ku taalay ay ku jirtay laakiin marka loo barbar dhigay yani in dadkan la sanduleeyo oo madax lagaga taagnaado waxaas oo dhan waxaad arkaysaa inayna wax ahayn talabaadna uu buuka ka fahmay wax weeyaan yani sida ruuxda qabyaaladu ay Soomaalida nifuhu ugu weyntahay oo waxa ganacsiga jabhada dhan oo wadanka la rabay inay wax ka qabtaan anigu ma filayo in xiriir ka dhaxeeyo jabhada sida Cabdullaahi Yuusuf buugiisa halgan yahay gadaamo ku xusayo mid jirin xiriir ka dhaxeeyo jabhada oo mar ay isku dayeen in Axmed Siraanyo oo gudoomiyihii SNM ha ay heshiiska saxiixdaan iyagii SSDF si loo yani wadanka la isku dhaxlaaqo oo maalinba gobol la xoreeyo waxa arkaysaa in Soomaalida yani USC iyo SSDF iyo SNM wax xiriir oo ka dhaxeeyaysan jirin sidoo kalena yani qabiilada ay ka tirsanaayeen jabhadaas mataliin ma hayna qabiil kale oo ku taraxay inuu san jirin markaas jabhadaha qudhood waxaan ka fahmay buuga dhexdiisa inaysan lahayn wax yani nidaama ama platform ha ay rabaan hadhow markay maxaasiyad ka tuuraan inay ku maamulaan waxa kaliya rabay ahay ninkaas yani caarsada marka ninkii caarsadayna kadibna qabaylkii uu ka soo jeeday isagu ama adarkaysa sida yani loola dhaqmay Soomaaliya arinta saddexaad anigu ka fahmay buuga markaan si fiican u akhriyay waxa kamid ah yani in dadka la dhiso in wax kasta ka muhiimsan tahay yani maxaasiyad baruuxu soo waariday xukun Soomaalida anaga qoon oo ahayd scientific community wax loo oran jiray oo adarkaysa maxamed Yuusuf xaqiiqdiisu ku jiray yani dad inta la qaaqaawiyay dabadooda la baarayo oo leeyahay dad seediyaal iyo gacal iyo xigaala ku jiray meeshaas inta dhamaantood cawradooda la qaabiyo lagaagay marka Soomaaliduna waxa sida caadi ah may aqoonin oo ma ahayn wax ay Soomaalidu fahmayaan markaas in dadka la dhiso oo wax ayagu garanayaan loo sameeyo oo lagu celiyo ayay ahayd saas filaya marka si xaqooda ma kusoo gudbiyeen meesha aad baad u mahadsantihiin madax iyo heema oo wax weeyaan martiqaadkan
fidisay buuggan waxoogaa ahaa si wanaagsan baan u akhriyey runtii waa buug haddii aad bilowdo aanad marnaba istaajinayn anu gebigiisa maantaan akhriyey waxoogaa markii hore waxoogan kasii akhriyey laakiin maanta si wanaagsan wada akhriyey sabab saaxiibkay sheegay kolleyba anigu waxaa ii muuqata uun waxaan aada u fahmay yacni kumuu ahaa Siyaad Barre oo shakhsiyadiisa waxoogaa isagii labadii macallin ee qorayay taariikhda odayga yacni si wanaagsan ay u faahfaahinayaan yacni qaabka odayga looga heybeysanayay iyo dadku siday dulliga u ahaayeen marka ay la hadlayaan ayaa keentay inuu dee wax kaleba maqli kari waayo saa uu sheegay inuu waxyaabaha dee dhaqanka Soomaalida ceebta ku ah in seediga inankii inantaada qabay iyo adigii oo sodogii inta meel idin soo joojiyo caafimaadkiina la baadhaya laydin sii jeediyo dabadiina wax laga baadho dad qaaqaawanoo dee weliba aan waxba xidhnayn yani waxyaabahaas waxay ahaayeen dee weliba 27kii waxaa samaynaya waa markii waddanka qabsaday yani foolxumooyin aad iyo aad u waaweyn buu ayaabu sameeyey isagu ma ahayn qof dee xoolo badan ka urursanaya walow awlaadiisu ay dhib badnaayeen laakiin isagu ma ahayn shakhsiyan dharku ku labisan jiray dhar iska caadi ahaayeen oo dharkan dadka caadiga xidhaan ayaa uu ku labisan jiray sadalkan iska caadiga ah uu xidhan jiray sigaar buu iska cabi jiray bun yaroo madowna si wanaagsan buu cabi jiray marka tallaabooyinka uu qaaday waxay hal qodob baan anigu aad i cajab geliyay odaygu maba aqoon waxaan la yidhahdaa document iyo system inuu waxaan mariyo maba isticmaali jirinba sidiisaba documentka saxda ah uu isticmaalay waa markuu dikrooyin sameeyo ama uu wasiir xil ka qaaday ama uu wasiir bedelayo uunbaa la isticmaalay wax sax oo laakiin waddanku wuxuu ku socday inuu aragtidiisa yani halkaa uu soo fadhiisanay yani siduu doono ayaabuu waynu waday taasna waxaa ka dhalanaysaa in uu inta wadooyinkan iyo waxyaabaha la qabanay laga gudbo in dadka la dhisaa ka muhiimsan in waxa weeyaan infrastructure iyo magaalooyinkan iyo waxaan lagu mashquulo waxyaabaha uu qabtay cajiibka waxaa kamid ah wadadii xamar ka soo bilaabantay boormi soo gaadhayso wax yar buu jirtay sidoo kale dee afkii Soomaaliga qoray waxyaabo aad u waaweyn baa la qabtay laakiin dhibta la geystay ayaa ka badan anigu family ahaan xaafadeedu markaa Burcay deganeedo si wanaagsan bay dhibaatadu qoys ahaan noo taabatay oo si wanaagsan baan u garanaya waa la iga warramay dee waalidkaas si fiican iga warramay dhibaatooyin aad iyo aad u weyn runtii uu geystay intaas ku soo koobay bismillaahir rahmaanir rahiim buuga waan akhriyay buuga Yuusuf Xayd maadaama uu dadka ugu xogogaalsan maadaama uu dadkii nidaamka ka soo shaqeeyay wuxuu aad noo tusay horta Muqdisho ay ahayd 1991 wixii ka horeeyay yaa deganaa aad u maasantiin mataqaanaa falooyinka iyo su'aalaha iyo weliba mataqaanaa falanqaynta baad baan ugu mahadcelinayaa talooyinka dawladnimada aad baan mataqaanaa ugu ogaadinayaa weliba Chinese-ka nooga warramay in ka faa'iidaysano intaa markaan ka gudbo si waqtiga soo koobo dhowr qodob oo su'aalaha laga yimaado hoos ka xariiqay markii aan falanqaynta dawladda ayaa rabaa in si degdeg ah uga yeertumaro mid waxa weeyaan Cabdiwahaab mataqaana ka dooday ama soo bandhigay oo ahayd maxaan ku dhahdaa misalada maxaan ku dhahaa xiriirka jabadaha ka dhaxeeyay iyo reerka iyo sida qofka dadka Soomaalida ay qabyaaladu ugu dhex jirto anigu dadka badankooda taa kaga doonaa islaahay cagsigan anigu aaminsanahay bulshada Soomaalida qabyaalistayaan maaha liidka Soomaalida qabyaalistayaan يعني دو مركان ساعة إنه شهر ولا عبد إنك بدو عيالنا وحكلا معها إنك الجلسين إنه وحلا وبرنا إنه إنك صاحب كاوت كتير سنتها إن هذا كان كتير سنتها مركان باي قوات صاحب ولا حشطة صاحب ولا شحاطة صاحب ولا حساسة صاحب كاوت كور هاي ساعة يعني وركي ساعة لكن إن هذا كان غادر كسمايز مركان لكن كين بعدي قف أهان هي الهبل مركان تسوق ساعة تبور ما هرجيسة ما لو بمارسه متى القبيلة دي تلك ما كان سوي كان فهمتان أتكون دلت التيم بعد ولا ساعة لكن مركز لقيت تقول individual life يعني قف شخصيا لقيت collective نقطة political system كشدوية أنا نظام سياسي كشدوية أنا هذه خانة الوجودية ولا يعني عندنا كمان تلوي الدنيا مركز الله يسحيو أنا يسحيو أنا يسيرين يريد كش يعني واحد يسوي لنا ترى كذا كش كذا هذا سوا مفعته سوا عليه يعطي يلا وكذا هذا واحد كذا هذا مقع يو ستان شركية واحد لقى كفتمه يو perception يرك كون ومفعته سهلين وأنا مثلا يجلس أبوري المجتمع
خالد كلا جليان مركب مركب عاشوا challenge كان يعني مركب challenge كان لا سعريه يا بدن يا مقالة يا كسوه الرئي يا حدا وصو صاري كلام يعني مركب مجتمع العريو أي ضدك كارسفتان حاجة كانت كسوعة تعمد مثلا سؤالات كومن محاكو هذا دورشويك ومو متقانا وقبيلات البدن ودورشويك كلها دقاق ما حتى بحتيجي ما صوبت أول سلسلة دقاق رجع سيرين سلسلة دقاق تضلها فرنا حلبان كلها دقاق لسه خمسة مركز تذكر الله بحنا والله يركب النفس أقول مركز أنا حنسلاها هي فايز فيرسا ضد كم هي سيستم كوي ضد كم هي واحد إليت كوي مركز يمكن بيحكي كل يعني تسأله مركز هذا كل مرة استعماله إنه محاكو كل فيه لين إنك تهلس كسر بروستي أو عسكريها أو جنرالها أو دولة جنوبية كهيسة تغيره إنه بدأ يكويها أو رسله مثلا عندنا يسوع كور رمى هي وتجي يوم كيستي رجينا السعودية لا صوب حصلوا من الكلاب فشلوا لا صوب حصلوا سكيت جيا أنتوا أيركويها أيك حسن واحد أبيهم إن أنا أقف موبايل سكرين كذي بالشدة إلا وسكو يعني ما داخل قيمة إنه وكردوا عدك ريني برسد كهيلي كذا وأنا غير هي بكل كهيليش هذين لقى بحوا يعني هذين لقى نحن بحوا قاعدة إنه دقين بيت كنور دقين تذكر عدك مهين فران ما حد كانت تقنع كذا تذكر اللي كان حلوان كان وضيع مدحونا ما حد كلا تذكر شيء كتانه اليوم ترى ماشى أنا وحنا هي قابليني تذكر كسر أحمد شيء مركا تحسب شكل بموضوع ساعة مركا أرجع سنة من عسكر حريقه لابو مسألة بيقول هذا خيارات وقال شو حاجة تم حل مهم من وقتها يعني بوقت النوع عن آخر نفس المحمد شيء ذو كان نون فيكشن كان وليبا نلوش إنه الله حلو حالات بوقت الكور رميه بواق بقول لك الكور رميه تاريخ بدأ الكور رميه نلوش عليهم كنا الله يحاوري نلوش على كنا الله يعني قاعدين ضد قاعدين دقابة ضد حد جاب بقى إننا يمكن نلوش الحديد صار الدوق حلقة بسكرنا وحبرشنا عفماتك يعني سيرفيس كتكون ولا شيء طريقة وحبرشنا تشوف نقالات شقالة تشوف مثلا يسبدل كوين عبورين هناك منطقة تلسك كذي يسبدل كوين أو نحن يسبدل نقالة ما يسبدل كذا حتى إنه كسر صار المجتمع دول الدولة هاي أو مركز دول بعطات مسماش بعطات هذي كتو أعتقد كان أحسن شيء بسنة سوا شقادة تعليمتي عارفين تقول بلا شيء شقادة الدولة وخصمتها إنك شغال جيش مركز قارب هواها تشقى هدلويو يعني شعر قفل وسينة لكن يعني نظام سوي له قفل إنه يسوي صار أنت تنبين ولا شيء كويس كذا يروح يكون تعب ما شو لا أي شيء تعب إنه نقص صار إنه اللي يشوف قليل بيقولوا كوي بيهاي وحبرشوا معك تعال عارفين تقول عني هاي استل عشورتنا ولا قاعد يعني اسمه كنا عليه أولا عشورة الدولة قاعدة تسمع القاعدة حق الدولة الهينا ولا هاي لكن ما وش هذا عالي وحوس كده ما كان النبو آخرنا بوقت واحد فايدين هو مثلا نوشين المحاسن كده ديبو واحد لابد السؤال هذا كجواب أنت كلاس كده أول شيء تيجي سؤال أو منطقة أنا بحق رأي وشو بدله مرنا يعني تنسبوا تغيير أو أماري مرنا منطقة أنا أو ضلعني أو خلت كل كسارة مثل ما مركوا ركوب بالأباء ارتقف بالآدم كمل يحبوني كلام حالة يعني نلاش حالته وحكوا قري قيبوكه dadka insulin meel buu kaga jiraa dadka wax loo eedeynay meel buu kaga jiraa dadka dhibaatada ku dhacaysa meel buu kaga jiraa marka qofku kama dhex bixi karo qaar difaac uu sameeyo waa difaac noloshiisa ku xiran hadda xagga hore waxa ku soo bilowneena maskaxda ku hayno mar walba qofka ma waramaya qofku yahay qof shaqaale dawladdu joogo sidaas moogta ko labo qofka laga warramay laftirkiisa oo kalba go'aanka laga qaadanaya hal qof ma yani qofku farbaday waxa la qofku inta dad u yaqaan weey marka haddaad كنت قفال كان فرديان قانو قف بس ما شكون قانو كقف حلا جاي على ويا قانو معلم قفية قانو والد قفية كقف موجات كل رقم ما هي اللي بوجيرة هاي لكن قف بحالات بعد المدرسة مرة قف من وضعنا لفتر جيس السيادة ما تهلس كل بقى أنت لقى قانون يحلمه وأحفر بدل مرة كي متقنا عافمات كي واحد عشان يبلاش كذا ودي مرة هو المفرح شيء هاي مرة كي دتك حلي كرباشي ولا دفسنا يا مرة كي ممكن يوسف في حفتي زيتو قوي مرجلي ضد الله يا مروا كان dadka leeynaya oo mushkil marwa kan dawladii iyo maamulkii hay jilhada dhaama yani marwa uu farbaday marka isku bedelka waxa keenaya cidan la falgalay laftirkeedii farbadan tahay ugu dambeyntii su'aasha ugu dambeeya xasuusta iyo xasuusta guud ee taariikhda waa soo socday
waxaa ku bilowday mar haddaa xasuusta guud mashaakilka haddaa taariikhda laftirkeedu leedahay yani haddii caadifadu geli karto qofka taarikhyahankana caadifadu geli kartaa haddii xaaladda imka taagan ay yeedhinayso waxa laga taariikhda faqaya xasuusta guud waxa la xasuusanaya taasaa yeedhinaysa waxa la qoraya taariikhaana taasaa yeedhinaysa marka waxa qura ama waxa ugu muhiimsanay ku kala duwan waxa weeye taariikhda waa la maxkamadayn karaa yani taariikhda waa la maxkamadayn sidee loo maxkamadayn karaa qofku markuu taariikhyahan yahay waa inuu methodska taariikhda isticmaalo documentiisa isticmaalo waa inuu isticmaalo yani qaabka u drive kara imka qofku inuu kule meeshu joogo waxa qorayo wixii maskaxdiisa ku jiro kaaga warramaya laakiin qofka taariikhyahanku inuu waxa maskaxda ku jira ama looga warramay ama uu ogyahay waa inuu u daliil raadiyo waa inuu u caddayn raadiyo marka ama caddayn lojiga ha noqoto macluumaadkaas ku geegeeyo ama caddayn waraaqa ha noqoto dokumentiya raadiyo ama caddayn ra'yi intaasoo boqol qof oo hawsha ku lahaayo dhinacyada badan ka eegaya ha u raadiyo marka taasaa ay taariikhdu kaga awood badan tahay xasuusta guud laakiin xasuusta guud waxay kaga awood badan tahay xasuusta guud bilaash kuma awoodto markay cid necab tahay nacaybku bilaash kuma dhasho markay cid jeceshaana jacaylku bilaash kuma dhasho marka cidda taliska necab bilaash kuma dhaco cidda jabhadaha necabna bilaash kuma dhaco waxyaabo dhacay oo dadkana ay experience first hand yani taariikh tajribo ay mareen ayaa ku keentay inay san u xasuustaan marka markuu yuusuf waxay xasuusanayeen inuu muqdisho ka qaxayeen reerkooda la erinayo mataqaan waa u xumaray weeye dadka kale soo dhaweynaya jimaaduuna inay u farxaan oo caanaha u shubaan oo u heesaan waxay hore u soo mareen baa xukumay marka ma kala duwan ta markaan kusoo gabagabeynaya waxa weeye innaga mushkiladdiina haysataa maaha inoo taariikhdana ka been sheegno xasuustana ka been sheegno labada basharka kala midna intuu basharku ka been sheego waa ka been sheegnaa intuu basharku ka run sheegno waa ka run sheegnaa laakiin waxaan ku kala duwanay in la isku daayo yani adigu waxaad xasuusatay anigu waxaan xasuustay inaan ka wada hadlo no ay sidii waxa arrimaha jimid yani reer hebel xasuustooda guud inaad farageliso tira aniga waxa xasuusudaha xaalad dad kale waxaa ku geynaya horta marka qolo walba ay intoodu concentrate noqoto iyagu isku celceliyaan laakiin aan discussion laga gelin yani dadka laba xasuusooda kala duwan inta dawladda ka haysta ama laba xasuusooda kala duwan USC ka haysta ama laba xasuusooda kala duwan siyaad bara shakhsiyan ka haysta ama laba inagoo kale yani laba xasuusooda kala duwan islam ka haysta dadkaas inaanay ka sheekaysan oo sidii dad arrimo kale aad faragelinayso kale ay tahay no adigana ku saabsan anigana way saabsan oo taariikhda marka inuu aan waxaan aad u dhiirigelin oo la isku furo xasuusaha oo qofka yani kabiisa gasho oo sida uu xasuusanay isku dayro xasuusta dina markaas la isfahmi karaa at least xataa la isku dul qaadan karaa maxaa la isku dul qaadan lahaa la isfahmay inta laakiin la isqaadaynayo reer yaro kibirsan oo noocaas wala qolo waxa cabasho badan ma halkan oo waqti baahida ka dhamaan isleeyahay la liidayo xasuusteena guud ama la liidayo taariikhdeena la isfahmi maayo marka intaas ku soo gabagabeeyay aad u basan tahay ilaahay baa hadlayna oo si fiican ugu soo gabagabeeyay kulankeena caawa oo ahaa kii saddexaad marka koowaad marka waxaan mahadnaqay ilaahay marka labaad waxaan mahadnaqay Hayma Books oo wadashada ku badan siisay marka saddexaadna dhalinyartaada ugu badan ee ka soo qayb gashay marka afraadna ogaal ayaan mahadnaqay oo iyaguna soo agaasin barnaamijkan insha Allah buugan ku xiga ama doonto ku xigta dalban ka soo sheegi doona hadii la ina gaarsiiyo marka xabadii waxay kala doonaa foto guruba saas markaa ugu xidhnaa barnaamij salaamu calaykum